injirnay galab kastoo jimca saacadu markii tashanta galabnimo mararka qaarkoodna aanu idiin soo dayno talaadada 5 galabnimo anagoo barnaamijyada aan ku soo qaadno barnaamijyo kala duwan haday noqon lahayd kuwa markaasi ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo markaasi caafimaadka caawa barnaamijka aan ku soo qaadi doono hadii Allah wado loo barnaamij ku saabsan siyaasadda barnaamijkaasi oo ay ku qaada dhigi doono runtii aqoonyahan kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed siyaasadana runtii oo dhowl daloola mararkii hore ee joogay wadanka Soomaaliya ku dhex jiray markii dambe qurbaha loo soo noqday qurbaha intuu ka noqday isku dayay inuu noqdo sharax markaas uu tartamay jagada madaxweynenimada ee Soomaaliya hadaba Jaamac Xasan Khaliif ayaa martin ugu studio caawa oo arintan isla soo qaadi doona marxaladda siyaasadda Soomaaliya haatan ay marayso haday noqon lahayd mid markaasi gobol ama haday noqon lahayd mid federaal ah iyo markaasi guud ahaan Afrika iyo caalamka oo dhan sidee bay Soomaaliya u eegayaan hadaba ku soo dhawaad aqoonyahan assalaamu alaykum wa mahadsan Abdi Maalik jaamac aan ka bilowno marka hore bal xogogaalka aad u qabto Soomaaliya arimaheeda wacdigan hadda lagu jiro xogaa yar nooga taabo bismillaah federal ka baadi bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka waad mahadsantihiin Somali Media Abdi Maalik iyo saaxiibka Sakariye waqtigan qaaliga aad siiseen markaan taa ka gudbo arinta Soomaaliya runtii waxay maraysaa marxalad aad u adag una baahan qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh inuu ka gilgasho wax ka qaban kara ka qabto Soomaalida wada ogtahay dawlad bay in badan raadinaysay dagaal sokoy oo way gashay aan xal lahayn oo dhamaad lahayn bay gashay haddana waxaad moodaa maalinta ka dambaysa in hawsha ka sii darayso hawsha Soomaalidu marka waa complicated waa xaalad adag baan ku jirnaa waan oran karaa markaan qiimeeyo waayo mararka qaarkood waxaad oranaysaa rajadu ma qurux badna haddana waxa weyn qofka muslimka siisa waxa laga rabaa inuu san rajadiisu marba wanaagsan tahay waxaana rajaynayaa inaan ku jiro dadka inta badan rajadooda wanaagsan tahay yiraahdo Soomaaliya xal baa laga gaari doonaa marka haddii aan hawshan dib macnaha ku soo degdego oo qiyaaso sida aniga ay la tahay wax badan baa isbedelay ilaa